hawlaha arlada hadii lagugu aamino ummadda uu sabeeyo adeega laga dhigo ay furan idinkuma arkaysi ehela sheego ay furan idinkuma arkaysi ila adeerko ay furan idinkuma arkaysi ila adeerko wixii qaranka ka soo baxayay saddexdeena goluunba isku koobnay cid kale waxay nala qaybsay kulanti wacan wanaagsan dadkaana daawanayo meel kasta oo aad joogtaan halkani waa studio-na magaalada Minneapolis gobolka Minnesota ee waddanka Mareykanka daawadayaal waxa aynu bartamaha kaga jirnaa barnaamijyadeennii qiimeynta qodobkan maantana waxaan ku soo eegi doonaa amaba xubintan galabta aynu gorfayn doono waxaan ku eegi doonaa musuqmaasuqa baahay ee guud ahaan Soomaalida haysta kaalintee bay kaga jirtaa Soomaalidu musuqmaasuqa كونكن أما عالم كن أي نكون الله وحين ترى قويس الصومالية أو دغالب بحد لي شيء دبتمن نقضي مافيا سوين ودعبة ولها هي دغالها دت كم تضع هي أغانتا ما له على دعوة هو وين أيها وحكم إذا قندراسية ده يوم مال قشية ده أو دمان تودبه دت جوني أي أفكيس كمريان أكوني ذا دبته أي دت كاسي سميستان أي واحد كفرتان مقعية بينا أو أنا وحبة كتيرين وده سومالان أي هل كيس سنة بداوضيال وحلا دعاء ومركز إلا مسلمان سقى لعقل قياسه أفر بقول يكونتن مليون أو دولار كأمريكا سوماليا أي مسلمان سقى عالم كا أما كشيء كارين تكواد أما نمبر 1 سيكس ما نقطة برنامج كنا وحمر كلام مارتين هو مصطفى محمد مارتين أو صهر فديا مركز السود هو قد ما تصنت عليه أن قرب أكيد هنا مانتا أو ضفر بدن أو إن الدقيسان يعملون الدوانية أي رنتي حق فر بدن أي كهير دونا عادية واللي بقى واحد تعبان دونا مرة دي أنا شجني إن مسلماس قتشرو تذكر مسلماس قن كوكعة ليس كمقعية هي ميلها أي كيكل ترسين أنا كل بلونه ميلها هرتو حلقة ده ميلها هرتو على مركز congratulation waayo waa markii ugu horeysay Soomaalidu ay wax ku gashay number 1 marka horta waxaan u mahadnaqayaa xagga dambe number 1 ka gashay xagga dambe number 1 ka gashay marka at least waxbaan ku guuleysanay sanadkan marka taa laftigeedu wax ciyaara ma aha kulli qol hadayna la tartamayso wadankeena la tartamay waxa way horta Afghanistan horta calaw programkan wuxuu leeyahay ahmiyad gaar ah aad iyo aad wanaagsan waxaan doonayaa guud ahaan horta inaan xusno in dadkan la dhacay yihiin dad masaakiina ummadda Soomaaliyeed guud ahaan waa ummad aad iyo aad fakhri u helay waxa lagu qiyaasaa 80% ee dadkaas yihiin dad gaajo hayso fakhri aad u badan iyo maciishadlii iyo daryeelii badan ay la soo gudboonaatay marka horta dadka maanta calaw emphasis ka saarayna waa dadkaas iyo corruption-ka lagu sameeyay marka programka inta badan halkaas horta u socda waaye meelaha wax laga dhaco waa ay dheeft ku jirto waxkii horta calaw programkan waxa weeyaan wax la qoondeeyay adduunka wadanka ugu corruption-ka badan leh marka adduunka oo dhan waxa laga ogaaday inay noqotay Soomaaliya number 1 marka corruption-ka markii la eegay anigu aad iyo aad baan u eegay waxa laga eegay meelo badan waxa laga eegay xagga cadaaladda waxa laga eegay xagga miisaaniyadda waxa laga eegay xagga xisbiyada mucaaradka waxa laga eegay xagga xeerbeegtiga wadanka waxa laga eegay xagga bulshada iyo tayeenta waxa laga eegay xagga kontraktada waxa laga eegay xagga maamulka degadaha iyo airboodada marka waa qoondeyn guud oo la sameeyay waxaana ku guuleystay wadanka Soomaaliya guud ahaan Soomaaliya marka sida loo dhigay programkana aanay ka maqnayn Somaliland iyo Puntland marka guud ahaan soo maamulada oo dhan marka la isku wada daro la yiri waa wada Soomaaliya ayaa marka la yiri corruption-ka ugu weyn waxa ay sheegaysadii wadanka Soomaaliya waxay nagu xigay Afghanistan oo iyadu inaga yara duwan in kastoo habdhaqanka wada leenahay waxa isagana ku xigay wadanka leeyahay Korea wadanka leeyahay Haiti North Korea Haiti iyo Angola waxa jira wadamo kale ka mid ah Guinea Bissau iyo wadanka leeyahay Iran Iraq Syria marka wadamo badan Libya ku jirto ayaa kamid ah horta corruption-ka noocaas waxaynu gudagali doonaa eegi doonaa horta Soomaaliya iyo Somaliland boqolkiiba imisa lagu tilmaama in corruption ka jiro marka la qiimaanayo
markii xubin loo qiimeeyay ta ugu weyn inagu aan number 1 ku qaadnay ee mucjisada adduunka ku keentay waxa noqotay budgetkeena guud ahaan 80% waa lacagta miisaaniyadda wadankaas waxay ku baxdaa corruption miisaaniyadda wadanku 80% wadan inala mid calaw ma jiro marka corruptionka ugu weyn halkaasna ku qaadnay inagu lacagaha xagee laga dhacaa lacagaha inta badan siyaabo badan baa calaw loo dhacaa mid contract lagu dhaco mid lagu dhaco budgetka laga dhaco mid dawladaha ina caawiya laga dhaco marka way badan yihiin waxyaabaha lagu dhaco lacagaha xagee la dhigtaa marka inta badan dadku waxay dhigtaan waxa weeyaan de foreign countries dabadaha ayay dhiganayaan markay lacag xadaan markaas sidaasay dadku dabadaha lacagta u dhigtaan deeqaha Soomaaliya la siiyo sida humanitarian aid ka kale dadka masaakiinta loogu talagalay corruption talag ba iyagana ka taagan horta waxaan doonayaa inaanu deeqaha dhowr siyaabado kala qaadno mid tusaale waa tii Somaliland Development Fund in hore uga hadalay midna waxa weeyaan tii direct aid ka ahayd amba ha noqoto cunto amba ha noqoto gaadiid amba siyaabo kala ku timaado arrimaha badankooda aidku sida ay sheegan iyaguna 60% waxay ku baxdaa musuqmaasuq iyo sidii aan loogu talagalin inay u baxdo mararka qaar kood dekada laftigeeda ma dhaaftaba waxyaabaha noocaas martino dadka wax dhacaya ee musuqmaasuqa baaxad la sameynaya lacagaha ay dhacaan ee milyaynta dollara iyaga laftooda ma la sii dhacaa waa la sii dhacaa horta waxaan doonayaa calaw inaan programka ku xusno waxa Soomaaliya amba Somaliland ka dilaacaya imika wixii la oran jiray elite families iyagu kobcay oo sidii ma garanaysaa gafanaha amba shilinta oo kale xoonaha dhiiga uga jaqa umada u shaqeeyo marka iyagu yeeshay xoolo badan iyo hanti badan iyo power weyn inagoo marka dadka u barbardhigana dadkeenii masaakiinta ah ayaan doonayaa calaw in horta dadka xooga saarno siyaabaha u kobceen iyo ajendaha ka leeyeen noocaas noqdaan marka programka horta wuxuu daba socdaa familiyadan waaweyn ee sidii maafiyada u kacay ilaa Soomaaliya guud ahaan ilaa Somaliland ka dilaacay marka halkan doon horta in cabaar degno halkan familiyadaas intee leeyihiin familiyadaas horta waa familiyo kooban markii anigu aan eegana waxay isugu jiraan familiyo xaq dhaqan way ku jiraan xagga dhaqanka xagga siyaasadda way ku jiraan xagga mucaaradnimada way kaga jiraan xagga ganacsatada laftigooda way ku jiraan marka familiyadaas calaw way badeen haw badnaado familiyadan maamulka inka maanta gacanta ku haya marka intii kale madaxa kaga fadhiyaan hantidii wadankuna inta badan iyaga iyo intii la xulafaa ayay gacanta u gashay musuqmaasuqa meelaha laga dhaco hadaynu dib ugu sii noqono bal iyana waxa laga warantaa musuqmaasuqa dhinaca ciidamada ama militariga budgetka militariga waxa lagu qiyaasay 50% inay tahay lacagta Somaliland dakhligeeda calaw wali markii anigu aan arinta eegay Somaliland wali ma hayno cadeyn sheegaysa Somaliland ciidamadeeda intuu leeyahay meelaha ay kala degayn amba mushaharada intay qaataan mararka qaar kood budgetka inta leeg waxa weeyaan ma hayno waxa ku baxday iyo meelaha la galiyo marka iyada laftigeedu waxa ku dhaca musuqmaasuq aad iyo aad u weyn waxaan doonayaa musuqmaasuqa calaw markaan ka hadlayno inaynu bixino tusaale cajiiba tusaalayaal baan eega dhowra gabadhii loo jiray Philippines ka deganeed magaceeda loo jiray Miss Marcos waxa qabi jiray madaxweynihii marka wadanka Philippines marka waxa weeyaan gabadhaasi xoolo aad iyo aad u badan waa tii dhacday waxyaabaha markaa samaysatay lacagta ku samaysatay waxa kamid ahaa markii wadankii la qabsaday ee niman ku kaceen waxa laga helay guryaheeda kaba gaadhaya 3000 oo beer oo iyadu leedahay kabaha qaar dahaba qaar diamond iyo adduun ku jiray waxaan maqli jiray kaba badan ama shaydaanba 3000 oo kabood ay gabadhaas ay lahayd marka waxa weeyaan corruptionku wuxuu keenay intuu heer ka gaadhay aanu dadka marka xiriid amba dareen la lahayn qofkii miskiinka ahaa marka horta corruptionku ugu weyn caro halkaas wadankaas ayuu taariikhdiisa ka dhacay waxa dhacay bardhowteen lagu noqday marka meeshii laga xidhay ee lahayd lagu tagay wixii aboor cunay oo wixii lacag aan halka ku baabaaday in kasto imika laga dhigay museum dadka Philippines ay tagaan lagu tuso dadka corruptionku sidoo yahay marka horta calo corruptionku ka hadlaynayo familiyadan xoogeystay iyo sida lacagta u isticmaalaan horta waa qaabkaas weeyaan waa sida dareenka dadka masaakiinta ah ee maxaysatada ah ee arkaya corruptionku indhahooda ku arkaya dad baabuur qurux badan iyo villooyin waaweyn degay oo u eg inay yihiin dad ajnabi ah oo wadanka maalkiisa iyo dhaqaalihiisa gacanta ku haya marka dadkaas oo kale sheedada ka arkaan maxay dareenkoodu waa dareenkaas horta calaw markaan wadankii tagay anigu waan arkay maalmaha kamid anigu meel maraya ayaa waxaan ku leexday ilma yar school hostii fadhiya marka inamadii ma la hadlo markaas ay yiraahdaan adeer in yarna sug cabaar baan sugay markii dambe aan ku yiraahdan maxaa halka u fadhiday waxay yiraahdaan macalinka
kalaaska dhigaya ayaan daaqada ka dhageysanayna waxbarashadu caruurta kale u dhigayo haye marka waxa weeyaan calo caruurtaasi may kareen in iskuulka gasho laakiin agtiisay joogeen dabadna daaqad bay ka dhageysanayeen dabadna iskuulkii baan daaqada ka eegay iskuulkaasi muu lahayn xitaa kuraas lagu fadhiistay daasadaha caana boolaha ayay ku fadhiyaan horta marka calo corruptionku wuxuu cunaya waxa weeyaan waa mustaqbalkii caruurta yaryar tamaashiirtoodii iyo magaranaysa kuraastida ay ku fadhiisan lahaayeen ayuu horta calo mustaqbalkaasi cunaya marka corruptionku waa waxyaabaha ugu daran waxaan doonayaa ku siiyo berdhowto sheeko ka dhacday California nin wadanka Afrikaanka degan la yiraahdo Papua New Guinea oo oil country ayaa wuxuu ka iibsaday wadanka California guri 300 oo milyan dabadna dadkii meesha deganaaba yaabay guriga inta leeg iyo sida loo dhisay dabadna dawladda waraaqa u qoran waxay waa maxay wax meeshan ka socda waxa la ogaaday ninka Afrika degan ee ministerka inuu 300 oo milyan oo dollar California galiyay guri u leeyahay magaalada ku dhashin calo leer kama baxayo biyana male waxa la qoondiyay magaaladaas hadii leerka iyo biyaha iyo caafimaadkeeda la sugi lahaa markii la sugay waxa noqotay wixii ku bixi lahaa 15 marka corruption iyo familiyadu sida uga qayb qaataan waa kaas maanta kaynu ka hadlayna calo waaye familiyada imkaad ku tilmaantay inay lacag badan leeyihiin ayna u dhaqmaan nooc sida maafiyada oo kala dambiyada wadanka ka dhaca lugma ku leeyihiin badslada of course way kula ahaan horta crime-ka ugu weyn waa crime-ka laga gala population-ka iyo dadka waa crime-ka in laga dhaco xoolahoodii hantidoodii meel gaar ah la mariyo system-kii ay sameysteenna lagu dhaqi waayo marka horta way jirtaa arrin crime la xidhiidha laakiin crime-kan la dhaho white collar crime crime-ku wuu nuuciyo badan inagoo kii dhaxaltooyada la isdilayin baynu naqaanaa laakiin mid baa jirta in imika professional oo well organized ah oo leeyahay white collar crime kaasoo dadku imika aad u caadaysteen maadaama dadkayna daawaynaya aan u sheegnay sida musuqmaasuqu uu ugu baahay wadanka Soomaaliya guud ahaan oo ay noqotay number 1 wadanka ugu corruption ka musuq badan leh dalal kale oo inagu xigaan sida Afghanistan oo kulina ay jiraan waxaan doonayaa dadka in daawanaya bal in dhinaca kale ka tusno soo ma jiraan wadamo ka maarmay musuqmaasuq oo meel iska dhigay oo dhaqaalahoodu u socdo sidii loogu talagalay aad way jiraan yaasa kamida waxa kamida wadanka ugu horeeya waa Finland waxa ku xigtay Sweden Norway Denmark dabadna waxa soo raacday Holland Canada iyo Switzerland iyo wadanka la New Zealand intaas waa wadamada ilaa Germany marka lagu daro wadamada European-ki waa wadamada completely soo afjaray wixii la oran jiray wadankaas wixii la oran jiray corruption sidoo u dhan yahay haba yaraatay way ka maarmeen kuma la dhaqmaan systemkoodana kuma jiraba marka waa dawladda ama dad lagu dayan karo dhinaca musuqmaasuqa in la iska tirtiro aad iyo aad horumar weyn way ku gaareen inagoo eegi doono waxyaabo dhib kana corruption-ka noocan waaye marka number 1 xagga wanaaga waxa ka galay wadanka Finland Denmark number 1 xagga xumaanta ama musuqmaasuqa number 1 ka gashay Soomaaliya inaga Soomaaliya ka galay waa bilcaks waxaan doonayaa in guda galno liiska dadka aad haysid ee markii baaritaan fara badan aad sameysay aad garatay inay yihiin dadka ugu corruption-ka badan leh ee xoolihii dawladda iyo kuwii dadweynaha iyo maalkii dadka maatada aba dhacay ee ka xoogeystay ee aan loo gali karayn ee noqday dad farta lagu fiiqo mooyaane laakiin dad ka tagay meeshii dadka caadiga noloshooda ahayd oo aad loo hadalhayo dadka iyaga laftooda soo makala lahaa number 1 iyo 3 sidaan u qiimeeyna wadamada ayaan u qiimeynaa gaar ahaan Somaliland dadka corruption-ka noocaas ku jira Somaliland corruption-ka number 1 yaa ka galay Martin number 1 anigu markii aan research sameeyay dad badan aan su'aalo weydiiyay corruption-kana aan qeexay inagu kala saarayna corruption-ka dhowrno mid financial jira oo lacagtiya mid waxa jira la xiriira justice-ka amba iyo magaranaysa cadaaladda wadanka mid waxbarashada la xiriira iyo mid waxa la xiriira power-ku qofku gacanta ku hayay aan si fiican ugu adeegin marka horta waxaan doonayaa calow inaan marka corruption-ka laftigiisa qeexno kaynu maanta eegana waa laba waxa weeye waa kii financial-ka ahaa iyo kii financial-ka baritaarayay ee suurta gelinay in dadkan lacagta dhacaan marka listigaan ku sii calaamad mid baynu galanaa siida waaya listigan markaad dhibtay waxa halkan ugu horeeya xirsi xaaj cali markii wasiirkii ahaa madaxtooyada ee Soomaaliya
wasiirkii hore madaxtooyada Soomaaliland horta waxaan sheegay markii intaanu iman corruption ku jiray waagii riyaalaba laakiin corruption ka duwan buu kii uu markaa isagu markuu wadanka yimid laga dhigay madaxweyne afayeenka madaxtooyada wuxuu noqday systematic corruption-ka ninkii ugu horeeyay number 1 ka galay ayuu noqday isagoo u sameystay company la dhaho Somaliland Road Authority marka inta badan wuxuu noqday number 1 sida Soomaaliya u gashay corruption-kaas ninka kale wuxuu noqday ninka sidoo kale noqday marka miyuu ugu lacag badnaa dadka wax dhacay كمبانية فربنا محا سيدا لغو قيمي سيستم كا infection disease عذر كو وحو قبل عما مركا في السيستم كا لغو طلعالو كاينو كاعد لنا واكاس ما هالعقتا وقرا مركا نينكي يقول كو أبوري قاب سيستماتيكا in system ka loo hogaamiyo qaab ma garanaysaa fraud hadii minister la magacaabo iyo hadii minister dan laga leeyahay iyo hadii reer la hadlayo iyo hadii wax la sameysanayo ninkii uu horeeyay horta systemka ku infection disease ka dhigay ninka number 1 buu qaatay number 2 halka waxa ku qoran Maxamed Xaashi maxamed xaashi laftigiisu wuxuu noqday number 2 nin aan waxba ka dhicin ninka la yiraahdo xirsi xaajacalo isaga laftigiisa uu dhaqmay qaabkii xirsi aad mooday inay magaranaysaa tron inay isu soo dhiibeen qaabkii qorisaalka waxaan eegay waagi uu ka ahaa wasiirka airportka waxa jiray lacag badan oo Kuwait bixisay oo badnaa ilaa 20,000 oo dispute galay oo mar Kuwait kala noqotay oo milyan 20 milyan 20 milyan baa jirtay oo lagu sameeyay airportka marka wuxuu sameystay company loo jiray Chinese group bay la xiriireen company loo jiray Hon group ayay sameysteen marka waxa weyn isaga laftigiisu qayb weyn ayuu ka corruption-ka ilaa maantana waa nin aad iyo aad corruption-ka noocaas ugu jira isagoo waliba mar horena isagu arinta noocaas hore ugu jiray waxa jirta iyaduna waxaan eegaynaa bal gudoomiyaasha xisbiyada laftoodu kaalinta leeg bay kaga jiraan iyaga laftoodu waa ka mid corruption-ka waana waxaan ugu yeeray wixii loo jiray contract for corruption musabixi horta isagu waxa weeye actually isagu dhaafaya contract corruption saddex category buu galay isagu wuxuu sameeyay corruption ka duwan corruptionada kale oo dhan isagu waxa weeye markii wadanka la soo galayba number 1 ninkii uu horeeyay sameystay territorial corruption hadda noqoto xagga biyaha ayuu ahaa marka waxa weeyaan corruption kii ugu number 1 sana isagu ahaa marka kiisu waxa territorial landmarks wixii inagu inaano geed buu magaranaysaa tuulo ka sameystay oo kale marka corruption kiisu uu badan yahay ha u badnaado qaab military iyo qaab magaranaysaa afgambi oo kale laakiin waxa weeyaan uu jira corruption Faisal Al-Waraabi wuxuu noqday wixii loo jiray contractor waxa weeyaan inkastoo in the beginning ninkaas waa statesman laakiin hadda qaabku u biishubto waxa wixii loo jiray contractor mar haddii isagu laba jeer guuleysan waayo isagu halka markaa imika ugu badanayso ayuu contract ka qaadanaya marka isaga laftigiisa waa corruption ka mid ah qayb ku jira isagana maxaa oran lahayd Cabdiraxmaan Ciro isaga si gaar ah baynu eegaynaa corruption kiisa waxa weeyaan isagu waxa loo jiray power and delegacy balance waxa weeyaan powerkii uu gacanta ku hayay ayaanu si daacad ah ugu adeegin marka waa qayb isaguna kamid ah corruption actually horta waa ka ugu sii khatarsan ba corruption marka la eego ka dhaqaalaha waayo gudoomiyaha baarlamaanka xisbi mucaarida ah la xiriira dawladda ummadana ka wada turjumi lahaa qadiyadeeda guud iyo direction ay mari lahayd soo horta corruption number 1 actually ninka ku soo dhawaan lahaa xirsi xaajacale isaga laakiin financially isagu wax lacag oo benefit oo badan mayna arag laakiin isaga meeshaan ka hayna waxa weeyaan power ku lahaa iyo system ku taagnaa iyo ummadda inuu hago ka hortaago waxaan ku kaceen ummadana ayuu hataana ku dhicin isaga laftigiisa waa qayb kamid ah corruption-ka waxa rabaa iyagana inaanu eegno saddex qof oo wasaaradda maaliyadda joogay oo saddexba isku xaafad ah marka si loo dhigo balbalaad hadalka wax ku soo balbalaadnay saddexda isku xaafada ee maaliyadda joogay waxa kamid ah Samsam haya wasiira iyo wasiirkii hore ee isna Soomaali iyo Saad xagee ka soo gali karaan category-ga markii research-ka sameeyay systematically saddexdu waxa soo galeen corruption iyagoo isticmaalay horta wasaaradihii qaab kale aan affiliated amba qabiil qurun meesha inta badan ka shaqeeyo contract-yadan ay qabiilkaasi helaan saddexduba corruption-ka way soo galayaan laakiin iyagu waxa soo galeen qaab financial iyo qaab systematic oo kale aan affiliated oo inta badan ay u sadburiyeen dadka iyagu qoysaskooda ahaa marka iyaga laftigooda aad ay ugu jiraan corruption-ka arrinka aan aad loo yaabanahay dad badan oo ina daawanayaan aad loo yaabi doonaan waxa weeye ninkan aan soo wado magaciisa oo aan ku weydiin doono meesha kaalinta kaga jiro isna corruption-ka dad far badan ayaa iyana madaxa qabsan doona Xaaji Cabdiwaraabe maxaa galay waxaad moodaa ninka dhalay corruption-ka inuu isaga yahay ilaa dawladii cigaado isagu waxa power broker haday reeruhu istilaan
iyo haddii Soomaaliland arrin ka dhacdaba ninka kaliya ee maanta dhexdhexaadiya ayuu ahaa inta badan wuxuu lahaa financial gain ilaa marka Salatom company-gan weyn telecommunication laftigiisa waa ninka ugu share badan qiyaastii imika hantidiisa ilaa 10 milyan calaway gaadhis hadday noqoto wixii loo jiray dhul iyo hadday noqoto magaalada hanti dawladeedba ninkaas waa nin aad iyo aad isaga laftigiisu hanti weyn u leh marka isaga laftigiisu waa corruption kamida wadanka oo la xiriira amba traditional iyo wixii loo jiray power brokerage way ragga odayaasha imika aad arabooday qiyaasta Martino lacagaha milyanska dollar ee ku maqan ama nin walba oo oran karo hantidiisu qiyaas ahaan waxay ku dhowdahay intaas qiyaastii corruption-ka markii aan qiimeynayay kelmadda corruption waxaanu ku qiimeynay wixii dawladda amba musuqmaasuq ka faa'iiday milyan iyo wixii ka badan waa kii dhaqaalaha waxaan kaloo ku eegay wixii la oran jiray qofkii power accessible gatekeeper wixii waashmaan ka ahaan lahaa corruption-kan sida cirro kale oo isaga laftigiisa arinta ka dhaqaaqin marka dadkan badankoodu waxa weeye family aan ku sheegay qaarkood ilaa imka 40 milyan oo dollar way haystaan oo dibadda u yaala way marka 450 milyan aan ku tilmaanay Soomaaliland sanadkii ay ka maqan tahay oo la dhaco nimankan imika aan magacawnay qiyaastii kala bar ku maqantay lacagtaas kala bar bay ku maqantay actually badankooda iyaga intaas bay ku maqantay haddaad eegto marka la yiraahdo 400 milyan calaw lacag aad u badan ma aha waxaan doonaa waxaan ummadana uga digno corruption-ka systematic ku dhacay waa mid dhul waa mid contract waa mid wax la dhaho offshore waa mid drilling oo gaasta waa mid energy-ga waa mid hawada waa mid maayada dabka waxa la wixii contract wadankeena la hawdhan dibad ayaa lagu bixiyay kii u dambeeyay dekada berbera 15 milyan lagu qaatay calaw waa kamid marka waxaas dhan markaad ku duubto iyo lacagaha aidkana laga qaaday waxa weeyaan waa way gaaraysaa lacagtaas 450 milyan oo dollar marka maamulka corruption caynkaas ku jira sidee uu muuqan karaa wuxuu sida igu celisaas waxaan u jeedaa markaad imka eegtid sidoo muuqan karaa sidoo muuqan karaa maamul sida imka aad sheegtay corruption inta la eg oo millions of dollars la dhacayo sanad kasta oo qandaraasyo oo sida loo cunayo qaabka loo arkayaa maamulkaas waxa loo arkayaa runtii qaabka horta corruption-ku wuxuu dilaa dhammaan nolosha bini'aadanka oo dhan ayuu dilaa haday tahay waxbarasho haday caafimaad tahay iyo haday bulshada dhexdeeda noqotaba marka waxa weyn wadanku markuu corrupt noqoto waa wadan disease ku dhacay sida looga daweynayana ay si adag tahay marka reason-kan program-kan u sheegana waxa weyn ummaddu inay ka digtoonaato amba ay arkaan waxa wadanka ka jira mustaqbalka aynu yeelano dad tayo leh oo corruption-ka calaw ku kacaamin waayo corruption-ku calaw wuxuu dilaa bini'aadanimada oo dhan ayuu dilaa tusaalaan ku sinaya dawlad baa jirta Soomaaliya laga riday dawladda loo jiray kacaanka wax kale lagu lama dagaalamin waxa lagu la dagaalamay waxa systematic corruption in kasto imika corruption-ka jira maanta Soomaaliland xitaa kacaanka laftigiisa ka xishooday qaar waxa weeye marka systemku hadii uu infection disease galo calaw wadankaasi wadan sii jiray maaha waana in laga hadlaa arrimaha noocaas way dadka ku daawanaya ee si fiican doonay inay u dhuuxaan gundhiga hadalkaagu aad iyo aad barnaamijkan uu ku saleeyahay waa maxay Martin waxa weeyaan calaw horta markaan wadankii tagay waxyaabo badan iga nixiyay ayaan arkay waxyaabo badan oo aad aan isugu ciilkaambiyayna waan arkay tayga nixisay horta waxa kamid ah ilmaheena yar iskuul tagay ama waxbarasho u baahan wuxuu baahan maalinta waa $3 noloshiisa oo dhamay nolosheena way fududahay in la suurta geliyo laakiin waxa hortaagan waa corruption waxbarashada caruurteena tayada caruurta caafimaad iyo mid guri iyo mid degaan nabadgelyadeena security-geena cuntadeena waa wax fudud in la tayeeyo laakiin calaw waxa hortaagan waxa weeye waa corruption-ka waxa calaw maanta la xaday amba la cunay waxa waa tamaashiirtii macallinka uu ku dhigi lahaa iskuulka waa kursiga uu ku fadhiisan lahaa ardayga yar waa ardaygii saddexda waqti cunto heli lahaa marka calaw waxa darkiisa hooyo ka timi laba carruur wadata ilmana naaska jaqsinaysa gaalina dib raacaysa soo iibgeysay neef yar oo $30 laga siisanayo marka horta calaw arintaasi aad iyo aad ayay aniga ay dhabtay corruption-kaasina aad iyo aad ayuu dhibay waxa kaloo igaga sii daran markaan qoondeeyay siyaabaha ummadan looga saari karo faqriga waxa number 1 ka in corruption-ka calaw la yareeyo marka system-kaas oo dhan wuxuu ku keenaya inaad wax soo bandhigto tartanka iyo loolanka dhinaca corruption-ka ee qabaa'ilku aad iyo aad horta waxa weeyaan waa su'aal wanaagsan waxa weeyaan clan conflict iyo corruption kullu wax jira waxa weeyaan ninkii su'aasha horta waan daba galay dad badan waan weydiiyay maxaa keenay bulshada inuu ku dhexnoolaado ninkii xaday ee 50 milyan amba 40 milyan xaday maxaa se keenay waliba in la ciseeyo oo waliba la shafro marka dadku waxay guud ahaan ii wada sheegeen in ay cayba tahay dhaqankeena
haddii aad meel ka shaqayso wasaaradda ama aad wasiir gaadhay oo aan waxba xadin oo waxba haysan maanta society-ga waa ku takooraya marka waxa jira inaga dhaqankeena laftigiisa ayaa suurto gelinaya in waxyaabaha noocan corruption-kan calow marka dhaco marka qabaa'ilku waxa way waa protection waa net waxa way ninka fariidka waa ninka reerkiisa wuxuu soo dhacay wax siiya marka dawladdan maanta joogtana waa dawladdii ugu fariidtanayd ee reerkooda wuxuu dhacday way marka halkii laga oran jiray hebel meesha la geeyay dhacdhac ma leedahay ha waa lacagta musuqmaasuqa iyo laaluushka ha marka haddaan reerkiina wuxuu dhicin amba aan adigu naftaada wuxuu dhicinna waa laga yaabaa inaad kaato inaad xubiban kasii noqoto waxaan doonayaa corruption-ka aynu soo dhaafnay odayaasha odaynu ilowna leeyahay Salebaan Gaal golaha guurtida ninkan baarlamaanka oo kamid isaga laftigiisu wuxuu la tartamayaa Cabdi Waraabe laakiin eeg waxa jira vertical clan affiliation hore uga soo hadlay oo qabiyaaladii iyo clanka laftigiisa maamulkii iyo golihii guurtida laftigooda isku noqday system isku xidhan oo corruption-ka calaw adeega waxa jirta wixii loo jiray wasaaradda cadaaladda imika kale maalin dhawaato waxaan tagay waa Hargeysa waxa la sheegay laba nin oo u garqaaday laba qoys oo is haysta marka waan wareystay waxaan ku leeyahay gartaas siday u dhacaysa waxa la yiri kolba qofkii saadka lacag ku soo shuba ayaa garta loo qaadaa marka waxa ka dhigantay odayaashii xitaa garta qaadiyay maanta ayaa lacag ku shaqeynay marka telefoonay leeyna saad baa la isticmaalaa moogta telefoonka lagu soo shubaya marka telefoonka lagu soo shubaya kolba sidaas uu eegaya moogta marka kolba qofkii uu soo shubay xaqiisa ayuu garta u naqay marka inaga New York Stock Exchange-ka wanaga markaynu global trade ka sameynay stock kolba kor u kaco marka isaga laftigiisu sidan buu calaw korbu u kacayo kolba qofkii wuxuu soo shubaa ayuu eegay marka calaw برنامج كان واحد فاميلي ووينه كده العود كانوا خطر كوحية ديمقراطية خطر كوحية هيومن رايتس كي خطر كوحية لايف سبورت كي نيرا دون يين يصون نقدر مرة بعض نقدر المضح ودنا كتلسا سيرينه ده باور كاوسيسيان واي ان إنه قبل برنامج كان يشوفنا عن كسيو كلمة ده كل ترين سيد دتك هالنقطة سيد corruption كله هرتجي لها أما سيد دتك ضيرتي أيود دريم لهاين برنامج كان جندقيس يوجدديسه oo in xoolahoodii agoon hadeeyeen iyo haday maatayeen iyo haday maxaystayeen ba dan yar oo dhan isku soo diro waxoodii oo dhan la ismariyay marka nimanka xoog waaweyn iyo nimanka masaakiinta talahan maxaad ku darsamay talahan horta waxa weeyaan dad badan baa jira calaw wadankeena Mareykanka soo maray taajirnimada noocaas waxa kamid ah Rockefeller baa kamid ah Garnis baa kamid ah waxa kamid ah Vanderbilt waxa weeyaan waa dad hanti weyn yeeshay markii uu dambeysay waxay wada ogaadeen hantidaas inaanay uga tagin carruurtooda waayo dhibka dambe ku keenay ku doonto aweed marka hantida dhamaantood waxay siiyeen dadkii iskuulada dhigi jiray waxay siiyeen dadkii masaakiinta waxay ogaadeen hantidaas inay iyaga laftigooda cunayso marka dadka waxaan u sheegayaa taajirnimada noocaas iyo dhaca noocaas la dhacaya ninkii kula noolaa amba reerkii kula noolaa amba qoyskii kula noolaa ogow ilmahaagu kaligii taajir hadduu ka noqdo ummadda dhexdeeda inuu isaguna laftigiisa fakhrigaas qayb ka mid yahay marka waxaan kula talin lahaa carruurtiinu kama mustaqbal dawaaanayso kuwa markaa meesha jooga marka u adeega iyagana xoolahooda daaya mahadsan وهاجاك داود أنت سي أيام كوسكو يا برنامج كاسي أينو كهذا لني دينا مسقة سو قريب كها برنامج هذا تحناها دينا قيمتها برنامج كان ما أنت أيا حبين تنقار كا وحن كهذا لني سوماليا أو نمبر 1 كشيء دينا مسقة استبمرين تا لعجها هي مالك وحكرا أو أينو كهذا اللي قيس الصوماليا أو دغالب بحد لسمي دبتنا يسوب بدلي ضد مافيا أو ملبسنا يقول مالك dadweynaha amaba danyarta waxaanu iyana magacawnay oo barnaamijkeenan ku jira magacyada shakhsiyaadka reer Soomaaliland ee ugu musuqmaasuqa badan leh kadib markii uu daraasadaasi si gooniya uu isha u saaray oo uu baaray Mustafa Maxamed Martin oo barnaamijkan igala qayb galay tan iyo kulankeena dambe barnaamijkan oo kala adaawadayaal intaynu dib ugu kulmi doono waa cali xalaale oo dhamaantii bayda kaga tagay sida ayo nabad geliyo aad iyo aad baad mahadsantahay thank you ay furan idinkuma arkaysi ehelakego ay furan idinkuma arkaysi ila adeerko ay furan idinkuma arkaysi ila adeerko wixii qaranka ka soo baxayay saddexdeena goluunba isku koobnay cid kale waxay nala qaybsatay